waxaa meel hagaagsan maraya dhismaha masjidka weyn ee loogu magacdaray sheekhii weynaa ee cilmi badanaha ahaa ee sheekh xuseen cadde oo uu dhisayo xirowgiisii weynaa ee sheekh maxamuud sheekhaay oo ku yaala xaafadda suuqa xoolaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. dhismaha masjidka ayaa hadda maraya meel aad u wanaagsan iyadoo uu sii baahan yahay shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah meel kastoo ay dunida ka joogaan. waxaanu booqannay masjidka si aan u soo ogaanno halka uu marayo dhismaha, waxaana hadda muuqata ififaalo wanaagsan oo ah in masjidku uu soo gaaray heer aad u wanaagsan. ugu horreyn sheekh maxamuud sheekhaay ayaa ka warramay halka uu marayo dhismaha masjidka. wareegii uu taam noo noqday masjidka kiisahay tiirarkii dhexda ahaay na ay shuban yihiin oo daboolkii shubka ahay uu u dhiman yahay. daboolkii shubka ahay waa la qiimeeyey, injineerka wuxuu yidhi 80 kintaal oo bira ayuu u baahan yahay. waxaa la helay 30 kintaal, 18 nimaa dhiibay, 12 nimaa dhiibay oo kintaal oo bir ah. 80 waxaa ka dhiman 50. shamiitada injineerka wuxuu sheegay 700 oo kiish inay ku filan tahay. waxaa la helay 227 boqol kiish nimaa dhiibay, 127 nimaa dhiibay. marka 500 oo 30 dhiman 470 kiish ayaa ka dhiman shamiitada. wuxuu yidhi alwaax ayaa u baahan yahay masjidka 15 mitir kubo oo alwaaxda u taalo hadeer ayna ku jirin. wuxuu yidhi injineerka khayr allah siiye 15 kaariko jaayo u baahan yahay, 15 kaariko oo caraha u baahan yahay oo caradii shubka waay, cara shubeed waay, maahina caradii dhismaha ma waa ka soo gudubna taas shirki loo noqdaba. caradii shubka 15 kaariko u baahan yahay. marka intaas markay culimada ay maaragtay qof walba tacliiqa kalkeeda la siiyey, shiikha ugu dambeeyey wuxuu yidhi shiikha wuxuu iska ilaabay maana doobaradi 10,000 na waayo wuu yidhi 10,000 waay maana doobarada kaligeed. waxay isku noqdeen 30 iyo 4,000 iyo 610. marka inta oo la helayna intaas waaye, inta dhimana waa intaas. marka waxaa loo sheegayaa ilaahay ayaa loo sheegayaa. marka labaad waxaa loo sheegaa muxsiniinta iyo muxsinaadka oo horena uga soo qayb galeen gobolna ay cusub yihiin ayaa loo sheegayaa insha allah inay haddana ay qod ka dhammaystiraan. qaar ka mid a culimmada waaweyn ayaa ku baaqay in laga qayb qaato masjidka. waa kan sheekha weyn ee saaxiib wilaayaha dariiqada axmediyaah sheekh axmed, sheekh cabdiraxiim iyo alwaalid sheekh nuur cumar absuge iyo sheekh muuse macalin xasan caynte. waa baytullaahi wax la bixiyo waxa ugu fiican meesha lagu bixiyana waaye sida culammada noo sheegeen. wixii aad hormarsataana maalkaada ka mida, wixii aad ka dhimatane qaraabiya owlaada iskale waa lagu kala baxaa, kaas adigu ku soo gaari maayo. intaad nooshahay ka faa'iidayso. baytullaahi wixii aad gashato waa wax biri ku anfici doona. haddana waxaa u sii dheer masjidka waxaa lagu magacaabay sheekhayna sheekh xuseen cadde sida mashaa'ikhda noo sheegeen. waxaa nagala rabaa gurmad iyo kaalmo, xoog iyo xandho intaba waa la yska rabaa. iyadoona anfacaysa sadaqadaas aan la baxayno, haddana inaan masaajidka ka soo qayb galno, bir ahaa, shamiindo ahaa, caro ahaa, xoog ahaa, wax walba aan ku kaalmayno inaan masaajidkaas ka qayb galno. waxaa jira dhe intiba lagu cibaado falaya ajirkeedana waa leedahay, wix aad baxsatana waa ku anfacayaan, khaasatan dadka muxsiniinta. aabus xuseen cadde waxaa nooga warbixiyey maxamuud sheekhaay raadkiisa allaha sahal. haddaan sheekha loogu magac diray masjidkii sheekh xuseen cadde la yidhi, waxa weeyna maaska la kulannay inaan khushuucno, inaan tawaaducno, inaan waxaan ka qaban karna ka qabanno. maas nooga soo baxday. marka ikhwaankana maqlaaya waxaanu sheegaynaa qof la arkaba tabarteera waxay ka qaban karto masjidkaas ha ka qabato. sheekha waa noo sheegay joogo arrintiisa mahay joogto, waa nooga wixii u dhamman iyo wixii lasoo qabto noo sheegay. marka waxaan leenahay ilaahay ha fududeeyo, allahana sakhiro, allahana tamimo, allah noo tamimo. waxaan codsanaynaa walaalayaalow allah idin dhowree
magaca sheekheenana in la dhowro masaajidku magac sheekhulmashaayikh sheekh xuseen cadde aa loogu magac daray magacaasi inuu waxaa jawaabkeenna ku jira inuu maaragtay qayb ku yeesho inaan ogolaanno aaday muhiim u tahay masaajidka inuuna maanta ka dambe maaragtay u baahan wargelin dambe wargelintaani tii ugu dambaysay oo masaajidka uu ku dhammaanaya ay noqotaan codsanaynaa masjidku wuxuu marayaa meel dadkii horay wax u gashadana meeshi ku nacfintii markaan oo jadaadkii bislaashadii xilligeedii inta dambena meel maaragtay runtii meeshii lagu gebagabay lahay inay wax ka ogaadaan marka waxaan aad maaragtay waan ugu boorinaynaa walaalaha mu'miniinta ee muxsiniinta muxsinaadkaba in ay masaajidka insha allah noo dhammaystiraan sida ugu dhaqsiyaha badan jawaabkooda ay furaan akoonadooda ay dib ugu noqdaan maaragtay ka qayb geliyaan waxa ay bixinayaan waxa ugu horeeya inay maaragtay ka qayb dhigaan masaajidka insha allahu tacaala markaan wixii ka dambeeyaa waa in duruus iyo salaad iyo cibaadaadkii wixii masjid loogu talagalay hawshiisii inay maaragtay u fasaxaan keliyaha waay waxa u dhiman haddii masjidkan uu dhammaystirmo qof kasta oo wax ku darsada waxa uu heli doonaa sadaqo jaariya oo aan ka dhammaan iyadoo uu mahadin doono maalin uu kaga baahi badan yahay maanta